الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. halkan waxaan doonayaa inaan ka hadlo taariikh laga sii daayay radio Hargeysa maalintii Sabtidii oo malahaas looguna talagalay inay soconayso ilaa 18 May. taariikhdaasi waxa looga magac daray taariikhdii Somaliland ama sooyaalkii Somaliland. taariikhdaasi markay ka wadaan radio Hargeysa oo ah raadihii ummadda reer Somaliland marka aad dhageysato waxa wax laga khajino oo aad la yaabayso qof kasta oo garaad leh taariikhana laga ma been sheego waxa weeye Somaliland ma aha Hargeysa iyo Berbera ma aha saylac waa Somaliland ergaab laascaanood waa Somaliland marka taariikh ay meel leedahayna in meel la siiya waxa weeye wax xaraan waxa مثلا ka hadlay Ingiriisku markuu soo galay Somaliland taariikhdaas in uu Berbera ku soo horeeyay in ay heshiis ka saxiixdeen in lagu saxiixay harag sakaaro in ay qabaa'ilkii reer Berbera halka ahaa heshiiska la galeen in waxyaabihii heshiiskii markaa oo fara badan buu tirinaya markaas waxyaabahaasna Ingiriisku ficlan qabaa'ilkii xeebta ku dhararnaa Somaliland oo dhanba heshiis buu la galay meesha ku soo horeeyana waxa ay saylac meesha uu haragga sakaarada lagaga sareexay markabka dushiisana waxa ay saylac marka aynu eegno waxay ahayd taariikhdu waxay ahayd 12 December 1884 bilka ka bacdi heshiiskii Berlin Conference ayaa waxa boqortooyadii Ingiriisku soo direen nimankii sahamiyayaasha ahaa ee u sahminayay geeska Afrika oo ugu horeeyay ninkii loo oran jiray Richard Burton marka heshiiska ka bacdi markii heshiiska la galay sidii Afrika loo qaybsan lahaa Ingiriisku boqortooyada Ingiriiska waxa ku dhaqaaday sidii ay markiiba iyagu intii loo qaybiyay ay u gali lahaayeen 12 December 1884 heshiiskaasi waxa la galay Ingiriiska 12 oday oo gadabuursiya oo ugu horeeyo ugaasku 10 oday oo gadabuursiya oo kamid yihiin Jaamac Roble محمد علي بولون ugaas cilmi warfaa ugaas cilmi dheera raaga khayre وبري إيدله دعالة دبت عامر عقال جيل شروع ورفع روبله يونس بوح طبعا كأضيبه هالشيء كلا قلي وحنا كلا قلنا إن أي دولة إنجليزكو إلى عليسو أو أنا نقول جميسي أي نقدان محميات أي إلاليان مراكب تسيدة علنك إنجليزكونا أي دول كجد بورسي جاي حيبه هذا سوق اللي كران waxyaabaha tobsanta qodob baa laga heshiiyay shanta qodob inaana laga qaadin ba isleefa markaan soo adoonsiga laga qayb waxyaabaha geeskan Afrika ay aad u farabadnaayeen yaa kamid aha marka waxa aan la yaabo taariikhda laga akhriyay radio Hargeysa waxay ku leeyihiin Richard Burton wuxuu ka soo dagay Berbera Richard Burton buugiisi waxa la yiraahdaa First food established in East Africa waa kaasi cinwaankiisu magacaas uu leeyahay qof kasta yaqaana saylac uu ka soo dagay halkaas oo maray ee guusho dhaxmaray ciisu dhaxmaray qolo walba karakterkeeda dhaqankeeda uu ka qoray ilaa heer dib uu soo noqday halkaas oo Berbera uu ka dhoofay la isku ma haysto laakiin waxa uu sheegayaa kaadiriinta ka shaqeeya radio Hargeysa aybaydan ku tahay waa wax laga xishoodo taariikhda aad soo bandhigteen nin kasta oo weyn oo garanaya uu ka khajilaya laakiin jiilka yar ee dambe waxbaad ku jaaj garaynaysaa fool xun oo aan macquul ahayn marka waxaad leeyahay waa Somaliland Berbera iyo Hargeysa ma taariikhda ilaa saanood ee Somaliland baa tasayl ay leedahay waxa la Somaliland baa
tii horta iskuma haysano markii nabi maxamed baa ka soo dagaado gaal ka soo dagayba mushkilad ma laakiin taariikhda been yaan laga sheegay taariikhda been yaan laga sheegay waxa weeye nimanka wadayna iman saaqabahay ee turjumaanada xamaal iyo akhir zaman baa loo rinjay oo askartii waxay ahaayeen ingiriiska cadan baa laga soo saaray marka heshiiska aad la gasheen warqad baa lagula galay waraaqa laga saxeexay idinka kuma jirin dhulka yaan lagu ku dhalin ingiriis yaan lagu aasin oo ku dhalay waana lagu aas qabuuraha sheekh ma yaalaan dugsiga elementariga ee sheekh iyo taangiga biyaha inta u dhaxaysa inta soo qabri oo ingiriis ah ku yaal mid walba waxa ku qoran dhagax cad ay ku qoran tahay our darling is living here hargeysa ku aasan yihiin kaniisadu ka dhisay mishibo ka dhisay mid jacseeyo oo dadkii ka soo baxay ahayn Antonio Michael iyo Rimad iyo rag caynka ah yaa ka soo baxay oo mishibo jacse ka sameeyay kaniisadu ka dhisay oo ku dhalay oo ku dhintay qabriisi baa yaal laakiin deegaanka Gadabuursiga kumana dhalan kumana dhimanin tii ku calool gashay baa ixtiraamto soo siyaaratay oo ima jirtay boorma oo agtiina farxad ka tahay marka taariikhda yaan laga been sheegin taariikhda sideeda loo eego waxaad ka dhigteen taariikhdii SNM tahay waxaad ka dhigteen waxyaabii shacabka lagu kicinay baad ka dhigteen taariikhda oo aad u foolxun oo taariikhay marka akhridayda naftigeed la yaabaysa marka taariikhda sida bini aadamku taariikhaha u qoro ee waaqiciga ah ee dadku loo sheego yaa looga sheekeeyo wasiirka iclaanka ama Minister of Information Somaliland waxaan leeyahay waxba qoraababa la yidhi bal waxaan adiyaacada ka sii daynaysaan bal dib ugu noqda oo eega Richard Burton buugiisu waa 4 fooliyam iyo waa la yaqaanaa cid walbana muusabixi madaxweyne naftiisu waa xilligu secondary ku jiray aad loo akhri jiray buugaas uu garanayo in akhriyo uu og yahay marka waxa waan leeyahay kullay saaqo hunguri waxa leeyahay am positive and aad u aggressive bal waxaad sheegay waxa baa sheeganina wixii ummadu leedahay Allah ogolaado waa Somaliland isaaq ma beelay ka kooban tahay kale marka waxaan kaga baxayaa taariikhda been yaan laga sheegin waxaad u baahataa haddaad geliso عنوان title كاسي يا first food studies in East Africa وكوسو قري وكوسو بحي شيخ جوجل يعني نمر خاطي واحد بلقيه شيخ جوجل عدو بعنا واحد جلسان هذا دوني سئنات أوجاتو أنقلو جدبوسي تريت وكوسو بحي أنقلو إساق تريت وكوسو بحي فالإن هرك سكاريو كنت وفر واحد وراقات مستعين وراقه هشيز واد لك شيء لكن ما هين هرك سكار ما هين اللهم حريسته حاجي محمد علمي حاجي محمد جامع محمد علمي داره وحو هرقا ku wareejiyay 1974 akademiyada dhaqanka ayuu ku wareejiyay xaflad baa loo qabtay xilliga waxa wasiir ahaa Ismaaciil Cali Bakar waxa ka soo qayb galay safiiradii Ingiriiska iyo Talyaaniga halkaas koobiya la dhigay akademiyadii cid walbana way og tahay marka sidaas wax walba kala cad yihiin taariikhda been yaan laga sheegin. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.